doorashada xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo muddo la dhowr sugayay ayaa waxay maanta si toos ah kaga qabsantay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle waxaana doorashada si toos ah uga qayb qaatay misana kamid ah xildhibaanadii codeeyay 97 xildhibaan kuwaas oo buuxiyay kooramka codbixinta doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle 8 musharax ayaa qaybtii koowaad ee doorashada ku tartamaysay kuwaas oo wada doonayay in ay ku soo baxaan xilka madaxweynenimo wareegii koowaad ee doorashada ayaa waxaa iskaga haray 6 musharax oo kamid ah musharaxiintii isu soo taagay xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Hirshabelle sida uu shaaciyay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle Sheekh Cusmaan Bare Maxamed xildhibaan Maxamed Yuusuf Colow xildhibaan Maxamed Yuusuf Colow xildhibaan Maxamed Ibrahim Ali Sabuul xildhibaan Maxamed Abdi Waare ugu dambeyn wareegii saddexaad ee doorashada xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxaa isu soo baxay musharax Daahir Cabdulla Cawaale iyo waliba musharax Maxamed Cabdi Waare kuwaasi oo ku tartamay wareegii saddexaad kadib codbixintu waxa uu gudoonka baarlamaanka uu shaaciyay ciida ku soo baxday wareegii saddexaad ee kama dambaysta doorashooyinka waxaana gudoonka baarlamaanka uu tilmaamay in 23 cod uu helay musharax Daahir Cabdulla Cawaale halka musharax Maxamed Cabdi Waare uu helay 74 cod oo kamid ah codadka xildhibaanadii kooramkooda buuxay ee 97 xildhibaan ahaa wareegii saddexaad waxaa isku soo haray Maxamed Cabdi Waare iyo Daahir Cabdulla Cawaale waxaa helay 97 xildhibaan ayaa codey فكثر فديته وعاد المحمى ظاهر عبد الله حوالي وحوالي 7 حقيقة محمد عبد وارع وحوالي قدراتا يؤخر فكرت سدحات طلب فتح الاستدلال حرب كيسا في عزم دور الشيء مدحوينها دولات Hirshabelle محمد عبد وارع ugu dambeyn madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu khudbad ka soo horjeediyay bulshada isagoo tilmaamay in uu aad ugu faraxsan yahay doorashada ka dhacday magaalada Jowhar iyo qaabka isbedel doonka ah ay sameeyeen golaha baarlamaanka Hirshabelle waxaan rabaa horta dadka ka koreeya Jowhar ama ka koreeya isheegay Hirshabelle inaan wax yar uga micneeyo shucuurta iyo xasaasiga iyo dabaaldega iyo xafadaha aad maqasheen waxay ku salaysan yihiin runtii haddii reer uu leeyahay wiil uu jecel yahay laakiin wiilka xoogaa iskuulka uusan ku fiicnayn oo dhowr jeer dhaco maalinta uu ka gudbo imtixaanka waa la dabaaldegaa maanta waxaan markaati ka ahay in baarlamaanka Hirshabelle uu tilaab horay u qaaday diyaarna u yahay inuu qaybtiisa muhiimka dowladnimada qaato baarlamaanka Hirshabelle wuxuu muujiyay inuu madaxweyne ridi karo madaxweynena saari karo waxaan hortiina ka markaati ahay kalsoonida la siiyay miisaankeeda inaan dareensanahay 21 bisha ayaa lagu wadaa in magaalada Jowhar ay ka dhacdo xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabelle ee maanta lagu doortay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle Cabdi Fataax Zaki Bulsha TV Jowhar